gudoomiyaha maxkamadda sare ahna madaxweynaha maxkamadda ama maxkamadaha dalka Martha Koome ayaa si rasmi ah u daahfurtay qorshaha waxqabadka gobolka ee nidaamka cadaaladda ee Gaarisa ee loo soo gaabsho AJS iyo xarunta cadaaladda ee lagu magacaabo Al-Islaax taasoo calaamad u ah horumar weyn oo lagu xoojinayo xalinta khilaafaadka iyada oo loo marayo habab bulsheed iyo mid dhaqameed. xarunta Al-Islaax ayaa loogu talagalay inay noqoto xarun xalinta khilaafaadka isla markaana astaan u ah nabad, wada hadal iyo is-afgarad bulsho. halkaas ayaa lagu mideyn doonaa waayo aragnimada odayaasha, talada culimada iyo aqoonta dhexdhexaadiyaasha si loo gaaro xalal cadaaladeed oo dhisaya xiriirka bulshada kana baxsantan maxkamadaha. furitaankan wuxuu muujinayaa aqoonsiga hay'adda garsoorka ee nidaamka maslaxada iyo habdhaqameedyada kale ee muddo dheer ka qayb qaatay xalinta khilaafaadka Gaarisa oo leh dhaqan qani ah, diimeed iyo duruufo gaar ah oo xuduudeed. qaabkan cusub ee lagu xalinayo khilaafaadka oo ka baxsan kan maxkamadaha ayaa wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qaybood oo isku xiran. nidaamyada dhaqanka iyo diinta, taas oo loo raacayo ama laga tala qaadanayo odayaasha iyo culimada. gudiyada maxkamadaha hoostaga waa kuwa la shaqeeyo maxkamadaha Gaarisa iyo hay'adaha dawladda hoose oo ah jiifyada ama gudoomiye xaafadeedyada iyo ku-xigeenadooda. qaabkan ayaa u ogolaanaya muwaadiniinta inay doortaan dariiqa ugu habboon ee xalinta khilaafaadkooda iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadanaha, sharafta iyo qiyamka dastuuriga ah. gudoomiye Koome ayaa tilmaamtay in xalkan uu yahay xal muhiim ah maadaama maxkamadaha rasmiga ah aysan dabooli karin baahida cadaaladeed ee bulshooyinka fog, kuwa saboolka ah ama aan heli karin adeegyada garsoorka ee rasmiga ah. xalkan wuxuu si toos ah ugu dhowaanayaa dadka, wuxuuna ku shaqeynayaa luuqadooda, dhaqankooda, wuxuuna yahay mid aad u qarash yar. furitaankan cusub wuxuu Gaarisa ka dhigayaa ismaamulka 12aad ee hirgeliya qorshahan loogu magac daray AJS ee heer gobol, taasoo qayb ka ah istiraatiijiyadda garsoorka ee ku aadan bixinta adeeg cadaaladeed oo loo dhan yahay, dhaqanka deegaanka la jaan qaadaya, laguna kalsoonaan karo. Kitu ya kwanza ambaye nataka kusema ni ya kuwa napenda kupongeza gavana wetu kwa kubuni hii AJS. Hii itasaidia mambo mingi, itasaidia wale watu ambaye mara mingi sauti yao haisikiki. Nikiwachilia hapo Chief Justice, mara ya nyuma makazi kuandikwa ni 2015. Mwaka 10 iliyopita makazi haikuandikwa. Na wewe unajua wengine nakufa, wengine na retire, kuna pengo. Tunataka uandike makazi. Kitu kingine ambaye mimi nataka kusema ni ya kuwa hapa county ya Garissa Bura ilikuwa na kazi, Modogasha ilikuwa na kazi, yote wametolewa. Nasikia Bura wanasema watafanya kutembelea mara moja kwa mwezi. Hiyo haifai. Kitu kingine ambaye mimi nataka kusema ni ya kuwa kazi ya Masalani amesema atachukua case kwa online. Watu ngapi wanaweza kutumia online? Kesi ya kazi inahusu mama na mtoto. Sasa mama na mtoto kweli wanaweza kutumia online? Tunataka uangalie hiyo. Mwisho kabisa, Chief Justice, kulikuwa na mavutano wakati tulikuwa tuna create Supreme Court kwa sababu fulani, lakini tumefaulu. Supreme Court ikadhibitishwa. Sisi nataka majaji ya Kenya waangalie extrajudicial killing, waangalie watu kutoweka. Makoti iliwekwa ili kudhibiti, iwe mkanda kwa wale watu ambaye hawatii sheria. Kwa hivyo sisi tunataka
hatutaki extrajudicial killing, hatutaki watu watoweke, na nyinyi ndio safety belt ya kuzuia serikali na wale watu vichwa maji ambaye hawatii sheria kuwekwa ukanda ya kuzuia wao. Karibu, sitaki kuchukua wakati mingi. Mimi ningeomba maneno moja tu. Mara nyingine sisi labda tunatakiwa kwenda nje kidogo kuangalia makesi ingine ya kina mama. Ningependa jaji mkuu ya Garissa, High Court judge, mara nyingine afanye facilitation wakati tunahitaji. Kwa hayo machache, mimi nakujua wewe kama wakili mwenye msimamo kali hata kabla hujakuwa judge. Karibu.